Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal sidaan hore idinkugu sheegnaba waxaan soo celinay jadwalkeeni musalsalada. Maanta waxaan ku horumarnay musalsalkii dhaawacii qalbiga. Hadeerna musalsalka labaad aan soo gudbinayno wuxuu yahay kii ahaa qof oo lunsaday caashiqa kaasoo isaga muddo dheer inoogu dambeysay inaan halkan kusoo gudbino. Dhowr xalqadood ayuu sii maraya dhanka Hindiga. Waxaan isku dayaynaa maanta iyo beri iyo saa dambe inaan afintiga ku gaarno. Muuqaalkani waxaan ku falanqeynaynaa 4 xalqadood anagoo ka bilaabayna xalqada 363 maadaama xalqada 362 aan ku joojinay markii u dambeysay. Haddaba xalqada 363 ayaan kasii ambaqaadinaa. Waxay ka bilaabanaysaa say oo gurigii nadiifinayso oo gurigii sharaxayso ayay inoogu dambeysay Firaadna oo daawanayay. Haddaba say waxay kasoo dhacaysaa jaranjaradii Firaad ayaana qabanayo. Kadibna wuxuu dhahayaa hawshan iska dhig soo bax isoo raac meel baad ii raacaysaa meel lama filaan ah waliba. Gabadhii uu kaxeeyay gurigii ayayna kasii baxeen. Karishmaana way arkaysa markay sii baxay. Baaqi ayaa meeshii soo maraysa isay hagaajinaysay misana ay sharxaysay alaabtii oo dhulka taala ayay arkaysaa. Arrinkii ayayna Bafani u sheegaysaa. Waxay leedahay gabadhiisa ay ahayd alaabtii ayay wadada kaga tagtay. Dadkana way ku fikiraan meelay aadana lama oga. Karishma ayaa soo boodaysa waxay leedahay say meeshii aada aniga garanayo. Firaad baa kaxeeyay. Idii Firaadna way ambabaxeen dibadii aadeen. Dhinaca kaleeta Firaad wuxuu soo kaxeynayaa say markuu soo wadana wuxuu tusayaa gaari. Wuxuu leeyahay maanta waxaan ku barayaa sida gaariga loo wado ama baawarka loo kaxeeyo. Say marka hore way cabsanaysaa laakiin wuxuu leeyahay aniga kula jiray waxba ha baqanin hal jeer ayaan soo galaynaa. Wuu u tilmaamayaa wuxuu leeyahay sidan sameey steerinka qabo meeshan riix meeshan taabo waxba u tusaya gaariga sida loo kaxeeyo. Sidii ay say ku kaxeynaysaa iyadoo waliba cabsanayso. Waxaana leedahay adiga maanta dhan ha igu qaylinini. Marna wuu ku qaylinayay marna wuu amaanayay yacni sidii durba u fahamtay laakiin marmar bay wax qaldayso markaas buu haddana ku qaylinayo. Wuxuu leeyahay shil hana gelinin tartiib sidan u qabo sidan samee ku dhaha samee aniga sidan kuu hagayay raac buu leeyahay. Iyadana kastaasi dhibsatay waxay dhahday markii dambe aniga kaxeynayay adigoo iga daa qaylada iyo amarka. Si fiican bay say gaarigii u kaxaysay. Ugu dambeynna way ku guuleysatay inay gaarigii kaxayso. Waxayna tiri maanta amarkaada inaan qaatoon ku qasbanaa oo sababtoo ah waxbaad i baraysay macalinkayga ahayd. Laakiin haddii gaarigaasi uusan jiri lahayn amarkaada ma qaateen hadalna kama dhageysteen. Marka inaad maanta macalin ii noqotod i xukuntid danta igu kaliftay bay leedahay say idoo la kaftamaysa ninkii Firaad ahaa. Kadibna say way ku guuleysanaysaa gaarigii inay si fiican u kaxayso. Firaadna aad buu u farxaya laakiin say baa ka daran farxadii intay is ilowdo ayay Firaad isku duubaysaa misana hab ay siinaysaa farxad awgeed. Iyadoo labadoodii sida isugu dhaganoo hab isa siinayaan baa meeshii waxaa soo maraysa Sonali. Sonali sawirro ayay ka qaadanaysaa Firaad iyo say oo hab isa siinayaan. Kadibna Sonali gudahii soo galaysaa. Sawirradii waxay tusaysaa Bafani Ashwani xitaa way tusaysaa. Waxayna dhahaysaa bal fiiriya Firaad iyo say wixii loogu talagalay inay gudaha ku dhex sameeyaan ayay dibadda ku sameynayaan. Sonali niyadeeba ka hadlaysay intaysan gudaha soo galayna waxay dhahaysay nin iyo xaaskiisa weeye oo gurigoodii markay guriga joogaan oo isdagaalayaan markay dibadda joogaanna gaariga dhexdiisa ayay boqol ku samaysteen miya oo waxan ay ku sameynayaan. Firaad iyo say gudahii soo galayaan. Bafani ayaa u sacbinayso misana qaylo ku bilaabayso. Waxaa leedahay aniga waxaan idin dhahay nin iyo xaaskiisa noqda hal qolna waad degaysaan oo hal qol ayaad ku wada noolaanaysaan ayaan idin dhahay. Laakiin guriga markaad joogtaan jaliin been ayaad inoo muujinaysaan waad isdagaalaysaan. Markii dibadda loo baxana nin iyo xaaskiisaad matalaysaan ood isku soo dhawaanaysaan gaariga dhexdiisa waxaas ku samayseen. Maxay tahay sababta waxaas u samayseen? Firaad wuxuu dhahayaa qalad ayaad fahamsan tihiin. Aniga waxaan say u kaxeeyay inaan gaariga sida loo wado aan baro. Baabuur kaxaynta ayaan barayay. Wax kaleeto dhiba ma jiraan. Waxaan aad sheegaysaan idinka unba fasirateen. Markaasaa Firaad iyo say la tusaya sawirradii. Ashwani waxay leedahay nin iyo xaaskiisa weeye waxay doonaan ayay sameyn karaan ama gudaha ama banaanka. Idinka maxaa idin daba dhigay? Bafani waxay leedahay maanta say qalad ayay samaysay. Firaadna sidoo kaleeto sida awgeed wana ciqaabaya maadaama ay sharcigii jabiyeen.
Sharciga gurigana wuxuu yahay nin iyo xaaskiisa inay gurigoodii ku asturnaadaan. Waxay sameynayaan inay gurigoodii ku sameeyaan, laakiin iyaga waxay sameynayaan waa anshax xumo oo dibadii iyo dadkii hortooda ay waxaas ku sameynayaan iyo gaarigii dhexdiisa. Gabadhiisa ay ahayd aad bay u caroonaysaa, sharafteedii ayaa dhulka lala galaya. Arrinkaasna kama aamusi karto. Firadna wuxuu dhahayaa oo maxaan ku jaban haddii aan wax walba sameyno son inay xaaskiisa manihin. Midda kaleetana aniga isaay hab aan isa siineynay saaxiibtinimo caadi ayay ahayd iyo farxad ku dheehan gaarigii inay saay si fiican u kaxaysay. Farxad awgeed ayayna gabadha hab ii siisay. Idinku maxay tahay sababta aad saay u daba dhiganaysaan? Firad aad baa loogu qaylinaya, xitaa amkar wuu ku qaylinaya. Gabadhii baaqi ahayd baa soo boodaysaa, waxay leedahay idinka firad kaliya maxaad dembiga dusha uga saaraysaan? Saayiba way joogtaa, waata intay taagan tahay maad hadalka ku qabsataan. Saayi afkay furanaysaa, markaa way qaylinaysaa. Waxay leedahay wax aanan aniga sameynin baad igu nabaysaan, aniga ayaad mar walba i daba taagan tihiin. Maxaan ku jaban haddii aan firad habsiiyey? Saaxiibkaygii i caawiyey oo gaariga i baraya ayuu ahaa. Maxaad idinka ii daba dhiganaysaan inaad dad sawir ka qaadataan iyagoo raalli ka ahayn? Weliba sawiradaasi waa qalad, waana dembi. Sawiradii anigii firadna laga qaadayna qalad weyn baana laga galay. Saayi aad bay u doodaysaa, iyadoo markaasi la doodaysa. Gabadhii baaqi ahayd iyo bafani samrad baa meesha imaanayo, garab ayuu siinayaa firad iyo Saayi. Wuxuuna canaananayaa Sonali, waxaana ku qabsanayaa inay qalad samaysay misana lamaane isqabo oo ninii xaaskiisa ay sawiro ka soo qaadatay. Dhinaca kaleetana baaqi wuu aamusiinayaa oo wuxuu leeyahay George. Iyadana waa canaananayaa maadaama iyada ay u fakfakanaysay ama hadallo kulul ay ku durduraysay gabadhii Saayi ahayd. Saayina umaysan aaba yeelin, si xun bay u canaanatay. Waxayna tiri adigaba firad waad kaxaysataa, kafee ayaad isla soo cabteen, gacmahaad ku dhaganeed, waad isku dhadhajinaysay. Firadna ninkaada ma ahayn, anuu ninkayga ahaan. Waxaas dhan ayaad soo samaysay, cid kugu qabsatayna ma lahan. Arrinkayna durba waa la daboolay. Firad anigoo ninkayga ah haddii aan habsiiyey qaab saaxiibtinimo ku dheehan xilli oo gaariga iyo sida loo wada ii barayay, maxaa dhib ah oo ku jaban? Baaqi aad baa loo kululaysanayaa. Xalqadiina meeshii ku dhammaanaysaa. waa xalqada 363. waxaan gudagalaynaa xalqada 364. waxay ka bilaabanaysaa Saayi oo carootay, qolkeedii ayay gashay, halkaasay ku oynaysay maadaama laisku dayay in sharafkeedii dhulka lala galo. Waxayna ka xumaatay sawiradii laga qaaday iyo hadaladii xumaa bafani iyo baaqi afkoodii kasoo baxayeen. Firad ayaa u imaanaya oo cuntadii ay samaysay u keenaya, waxaana isku dayaya inuu ilowsiiyo waxyaabihii qayladii lagu qayliyey iyo arrinkii dhawaan lagu qabsaday. Wuxuu dhahayaa waad ogtahay bafani dabiicadeeda waa taqaanaa, Sonalina adiga ayay shaqo kaa dhigatay, dadkan waa dad naga waaweyn, waana waalidkii guriga, ha ku dayinin, iska dhaaf, waxay doonaan ha sheegaan. Ani adiga saaxiibtinimadeena iyo xiriirka naga dhexay waan ognahay inaynan wax xun sameynin oo wanaag aan sameynay. Marka iyaga ha ku dayin, hana ku mashquulin. Waxay rabaan fikraas ka dhaadhacsiiyaan. Cuntadan macaan aad samaysay ayaanba aniga ku iloobay, buuqii hadda dhacay. Cuntadan macaan dadka hordaan ayaad samaysay, kalgacayl ayaadna ku samaysay, aad bayna u macdahay. Ilantii ayuu ka tirtirayay gabadhii, waxaana isku dayay inuu maslaxeeyo misana ilowsiiyo wax walba oo dhawaan dhacay. Laakiin Saayi ma ahan mid waxaasi iloobayso, wayna oynaysaa. waxay leedahay mar walba way daba dhigteen, baaqi ha noqoto, bafani ha noqoto ama Sonali, saddexdaas hablood aad bay ii daba dhigteen. Mar walbana way aniga waxay raadiyaan caybahayga iyo markaasi inay aniga mar walba i daba taagnaadaan oo igu qayliyaan iyo aflagaadeeyaan ay iska jecel yihiin, gaar ahaan baaqi oo fursadahan aad uga faa'iidaysanayso. Firadna wuu dejinayaa, aad buu u dejinayaa. Laakiin Saayi waxay leedahay waxaad iska ilowdaa kiiskii darawalnimada ee gaariga aad i baraysay. Maalinkii koowaadba waad u jeedaa buuqan ayaa dhashtay, barnaamijkan ayaa labadaynayna laga dhex abuuray. Marka hadda waxay ka dambeeyay waxaad i baraysid ma lahan, barnaamijkaasna jooji bay leedahay. waxu dhahay sideen ku joojinaa? ma iyaga dartooda ayaan u joojinaynaa? ma joojinayno. Mar walbo adiga aad fursad heshid oo maalinka waxba howlka aysan ku oolin, jaamacadna aysan kuu jirin, maalinkaas waan ku kaxayn,
gaariga sida loo wadana waan ku baray, si fiican ayaad u baratiis ugu sameynaysaa. Tijaabooyin badan ayaan markaasi sameyneynaa sidaasad gaariga ku baranaysaa. Dadkan barnaamijkooda iyo doodooda iyo qayladoodana hasku mashquulinin, danahaada ka wada ayuu dhahaya. Gabadhii si fiican buu ula hadlay. Dhinaca kaleeto Ashwani way soo baxaysaa, saari qurux badan ayay soo qaadaysaa. Bafani ayay u imaanaysaa, waxaa leedahay Bafani waxaan doonaysaa inaad iska cafisid, gabadhan aadan ku qaylinin, iska iloow wixii dhacay. Markaasi Bafani waxaa leedahay halkan haddaad u imaad inaad saay difaacdid kama yeelay, mana kaa dhegeysanayay, orda iska bax. Ashwani waxay dhehaysaa sidaas uma imaanin, saarigan quruxda badan ayaan kuu keenay. Bafani saarigii way amaanaysaa. Halkaasi Ashwani waxaa leedahay saarigan waxaa kuu soo dooqday saay dooqeydii weeye. Halkaasi Bafani saarigii tuuraysaa, waxaa leedahay ma doonaysaa waxayda iyo waxa iidii soo dooqday. Ashwani waxay isku dayaysaa inay Bafani qanciso. Waxaa leedahay saay gabar xun ma ahan, adiga buwad ammaani jirtay, laakiin maalmahan iyo muddooyinkan dambe ood ku kacsan tahay, aad bad u nacday. Ma garanayo waxay sababay, laakiin hal mid ayaan kaa codsanayaa. Midaas waxay tahay Firad iyo Saay inaadan isku qasbin, waayo hal qol inaad wada dejisid, labadoodaba raalli kama ahan. Marka waxaan kaa codsanayaa barnaamijkii aniga aan fikiray ee 2 qol inay kala degaan ah, barnaamijkaas in muddaha ku sii socodsiino. Waad aragtay adigaba markay 2 qol kala degeen, labadoodii way isku soo dhawaadeen, way isku soo xiiseen, hadeerna way isxiisanayaan. Laakiin haddaan hal qol ku wada celino, waxaad ogaataan way isnacayaan. Dagaalkoodii iyo khilaafkoodii meeshii ayuu kasii soconayaa, xiriirkoodana ma wanaagsanaanayo. Ani adiga isku hadaf ayaan leenahay, ujeedadayna ama hadafkeena waa hal. Adiga waxaad doonaysaa inay nin xaaskiisa toos u noqdaan, ilmana dhalaan. Anigaba sidaas waan rabaa, laakiin si dadban wada dadban ayaan u maraynaa. Qasab iyo qoor isku gelin ma ahan. Aan ka joogno barnaamijkan wax ka bedel, sidaasaan kuugu imaaday. Bafani way diidaysaa, waxaa leedahay go-aankaygii sidaan u gaaray way mana bedelayay, sidaasaan hawsha ay ku soconaysaa. Adigana isku day inaad i qancisid subaxii dambe marka la gaaro. Dhinaca kale horta Samrad iyo Baaqina way doodayaan. Baaqi oo ka fikiraysay canaantii iyo aflagadadii hadaladii kulkulala ay kula hadlaysay Saay. Hadalladii Saay bay soo xasuusanaysay. Samradna waxay dhahayaan Saay adiga hasku mashquulin barnaamijkeeda. Firad iyo Saayna xiriirkooda dir uu soo wanaagsanaaday, wadna u jeedaa. Mar dhowna waxaa la filayaa inay bishii malabka galaan ama markaasi aqal galaan, oo qol ayaa labadoodii la wada dejinayaan. Adigana xiriirkaada inaad ku sii mashquushid ayaa wanaagsan. Iyadana waxay leedahay adiga mar walba Saay ayaad aaminsan tahay, aniga ima aaminsanid, iman difaacaysid. Saay ilay mar walba difaacdaa. Waxaan kuu sheegaya Samradow, haddii sidaan ku sii socotid ani adiga xiriirkeena wuu burburaya. Samrad wuxuu dhahayaa markaa adigaba gabar fiican ayaa tahay, inuu amaano iyo iidii bilaabaya oo ka xanaajiye ileene. Marka ay idan iska degaysaa. Dhinaca kale subaxdii marka la gaaro, dadkii waxay gudagalayaan xafladii Diwaaliga iyo munaasabadii ducada inay isku diyaariyaan. Krishma ayaa meeshii qabanqaamo fiican ka sameynayso, aad baana loo amaanayaa. Markaasaa Muhid iyo dadkii kale macmacaan sameynayaan, Krishmana macmacaankii ayay ku mashquulaysaa. Markaasay Bafani ku qaylinaysaa, waxaa leedahay macmacaanka marka ugu horeyso ducada lagu sameyn, kadib ba'da lagu siinay, hawshaad qabaa la leeyahay. Krishma waa lagu qayliyay. Dhinaca kaleetana Bafani waxay ku dhawaaqaysaa in isla maanta markaasi ay tahay maalinkii ay Firad iyo Saay hal qol wada deglaayeen. Saayna arrinkaasi xoogaa way dhibsanaysaan. Aabaheedna xalay way la sheekaysato, sawirkiisii ayay la hadlaysay. Firad xitaa mar buu la hadlayay. Markana Saay alaabteedii ayay xirxiranaysay iyadoo ka xun misna usii goorayso qolkii Firad. Maxaa dhici doona? Xalqada meeshii ku dhamaanaysaa xilli Firad uu isagana is diyaarinayay, aadna uga faraxsanaa in Saay qolkiisii kusoo noqonayso. Waxaanu isku dayay inuu qolka si fiican u hagaajiyo. Waxaanu islahaa Saay way kusoo noqotay, isaga wuu ka faraxsan yahay, laakiin iyada ayaa xooga dhibsanayso in Firad qolkiisii ay ku noqoto. Nafis ilinima dareemaysa halkaas markay tagtay, wayna xishoonaysaa, wayna cabsanaysaa, wayna dhibsanaysaa ninkan Firada inay qolka la degto. Haddaba xalqadii 364 iyadiina halkaasay ku dhamaatay. Waxaan gudagalaynaa marka xalqada 365 waxay ka bilaabanaysaa Firad iyo Saay midba midka kale wuxuu isku diyaarinayay inay markaasi hal qol wada degaan. Saay way is diyaarinaysaa inkastoo xoogaa cabsi yar ay ku jirto, haddana xusuustii Firad ayay galaysaa. Mar ay timaha hagaajisanayso waxay xasuusanaysaa inuu Firad ka helo markay timaheeda furan yihiin. Haddaba Firad iyo Iido meeshii ayay ku kulmayaan, midba midka kale wuxuu uga hambaleynayaa munaasabada Diwaaliga. Baaqina way fiirsanaysay, way daawanaysay.
wayna carootay markay isku aragtay labadoodii. Intaa kadibna dadkii dhammaan waxay isugu hambalyanayaan munaasabada Diwaaliga. Kadibna waxaa dhacayso nin walba xaaskiisii inuu macmacaan afku geliyo, sida Firad oo Sai siinay macmacaankii, Samrad oo baaqi siinayo, Omkar oo Sonali siinayo. Halkaasay Karishma maseer bilaabaysa, waxay leedahay Mohit iyadoo canaananayso, nin walba xaaskiisa macmacaan ayuu afka u gelinaya, adigana meeshan ayaad iska joogtaa. Ninkeedii ayay kalbeynaysaa. Intaa kadibna waxaa imaanayo ninkii ahaa Sani oo hadiyada u qaybinayo dadkii munaasabada Diwaaliga ugu hambalyanayo. Markaaba Sai waxaa la tusaya sawir idii Firad ah oo meeshii dhalada albumkii ku dhex jiraan. Way ku farxaysaa. Marka hore waxay leedahay ani adigan lamaana isjecel ma nihin, laakiin sawirka markii la arko waxaa la moodaa inaan lamaane isjecelnahay, marka sida sawirkana looga qaaday oo loo soo sameeyay awgeed. Intaa kadibna waxay leedahay marba haddii aan hal qol wada degino sawirkan looma baahna, laakiin Firad wuu lasii kaftamaya. Intaa kadibna waxaa imaanaya gurigii Firad taliyihiisii oo u hambalyanayo dhammaan qoyskii oo dhan. Bafani dhinaca kaleeto waxay dhihisay Sai iyo Firad Diwaaliga xiga ama sanadka dambe waxaan ka doonayaa inay caruur dhalaan. Markaaba Sonali waxay leedahay bal ka waran hadday gabar dhalaan, gabadhaasna Sai oo kaleeto noqoto. Markaasay Bafani waxay leedahay midaas aniga ma yeelayahe, gabar hadday dhalaan waan korin, waxaan ku barbaarinayaa sharciga gurigan iyo markaasi inay gutaan gudato waajibka gurigan, sharciga guriganna waan baraya. Waxbarashadana si fiican ayay uga adkaan doontaa. Intaan aniga noolahay Sai oo kaleeto ma noqonayso hadday gabar dhalaan. Haddaba ugu dambeyn waxaa imaanaya taliyihii, kaasoo la sheekeysanayo Firad iyo Sai. Kadibna Firad ayuu u dirsanaya cabitaan. Intuu Firad maqan yahay ayuu Sai la sheekeysanaya, waxaa dhahaya ninkan Firada aad buu kuu jecel yahay, markii aad shilka galaysay aad buu u walwalay. Xafiiska ayaan wada joognay, markaas ayaan arkay sida uu kuu daryeelayo, sida uu markaasi kaga naxay markii loo sheegay inaad shil gashay. Dhab ahaantii Firad aad buu kuu jecel yahay buu leeyahay, aad buu ugu sheekeynaya. Kadibna Firad ayaaba soo laabanaya. Markuu Firad soo laabtana wuxuu leeyahay Firadow igu imow, markaasi banaanka arrin muhiim ayaan kala hadlaya. Odaygii ama taliyihii iyo Firad dibadii ku sheekeysanayaan, halka Sai ay guda galayso xusuus hore. Sai waxay soo xusuusanaysaa markii iidii Firad isgursadeen. Kadib maxaa dhacay, waxyaabay uu u qabtay, mar walba siduu garab u siinayay markii qoyska isku dhacaan. Waxay soo xasuusanaysaa sidoo mar walba oo iyada u daryeelayay markay dhibaato gasho. waxyaabo badan bay soo xasuusanaysaa. Halkaasay indhaheedii ilmeynayaan. Waxa u imaanaysa saddexdeedii Ashwani, waxaana dhahaysaa maxaa kugu dhacay. Halkaasay waxay leedahay dhab ahaantii Firaad wax badan ayuu ii caawiyey, wax badan ayuuna ii qabtay. Aabihii xitaa wuu ii lowsiiyey in markaasi aabihii uu geeriyooday. Geeridii aabihii kadibna si fiican ayuu nolosheedii usoo daadihisiiyey. waxyaabo badan ayay u sheegaysaa. haddana say dib bay gocosho u bilaabaysaa. waxay leedahay si kastay ahaataba Firaad wax walbuu ii qabtay, saaxiibtinimo iyo in aan xaaskiisa ahay keliyo iigu qabtay. jacayl kaleeta iyo waxyaabo kale igumuusan qabanin, oo jacayl oo ii qabo oo igumuusan qabanin bay dhahaysaa. Markaasi Ashwani waxay leedahay bal hal mar maskaxdaada dib u celiyo, bal hal mar dib u fikir, adiga ogaan doona. Firaad waxa uu kuu qabtay inay jacayl ahayn, in kaleeta adiga kala ogaanayay. bal adiga dib wax u bar, jawaabta aad raadinaysidna waad helaysaa bay leedahay. xalqadii halkaasay ku dhammaanaysaa. xalqada 366 aan muuqaalkan kusoo gabagabeynayno baa waxay ka bilaabanaysaa say oo isu soo diyaarisay, boorsadeedii soo qaadatay, qolkii Firaadna usoo goorayso. laakiin nasiib xumo waxay arkaysaa Firaad oo labistay dharkii dariska ciidanka xirtay, bixitaan safar ah. markaasay naxaysaa. waxay leedahay maxaa halkeed u socotaa. wuxuu dhahayaa howlgal ayaa la ii diray, waan baxaya. markaasay boorsadii dhulka ku ridaysaa naxdin awgeed. waxay ka naxday bixitaankiisii. waxay leedahay waa markii ugu horeysay Diwaaliga aan labadeena halkan ku wada dabaaldegino. hadeer ayaana qolkaadii usoo noqday. muxuu yahay bixitaankan degdega ah. wuxuu dhahay taliyaha ayaa ii imaaday. sababtoo taliyaha oo imaaday wax kaleeta ma ahan, howlgal culus ayuuna ii diray. Firaad wuxuu soo xasuusanayaa hadalkii taliyaha oo ahaa
howlgalkan cidna ha u sheegin waxa uu yahay, qoyskan ha u warbixinin, tafaasiil iyo sharaxaad ha u gelin. Waa sir iyo howlgal culus oo adiga aan kugu kalsoonahay, cid kaleetana hala wadaagin xogtan baa la yiri. Kadibna Firaad wuxuu dhahayaa taliyahayga sidaasuu igu yiri inaan cidna la wadaagin, faahfaahin dheerna aan bixinin. Marka waan baxayaa, amar baa la i siiyey, howlgalkan culus baan soo qabanayaa, waan soo noqonayaa. Saay waxay isku dayaysaa inay celiso, waxay leedahay ma wanaagsana adigoo ducada ka qayb galin inaad baxdid. Qoyskii hoos bay joogaan, waxaana la leeyahay Firaad iyo Saay maxaa ku dhacay, may ducada kasoo qayb galaan. Ashwani ayaa iigana sii dejinaysa oo waxay dhihisay way soo socdaane bal ogaadey. Baaqina waxay dhihisay waxay la soo daahin wax lee ka jiro. Ugu dambeyn Firaad iyo Saay way soo deganayaan. Waxaa la weydiinayaa Firaad labiska uu xiran yahay xilligan. Wuxuu dhahay waan baxayaa, safar ayaan ahay, howlgal culus ayaa la ii diray. Bafaniya waxay dhihaysaa waa maxaad noogu sheegi weyse mar hore. Wuxuu dhahay aniga xitaa ma ogeyn, hadeer ayaa taliyaha ii sheegay, sababtaas ayuu guriga u imaaday. Arrinkaas markuu ii sheegayna haddaba safar ayaan ahay. Samrad wuxuu dhahayaa dhab ahaantii waxaan jeclaa inaan markaasi ducadan ka wada qayb galno, maadaama diwaaligana labadeen isla joogno, laakiin howl culus haddii kuu soo baxday waad fasaxan tahay. Dhammaan qoyskiiba ku wada farxayaan, laakiinse Baaqi waxay leedahay Saay uma malaynay inay sidan ku samraysay amaad hor usii kaxaysataa. Firaad ayaa canaananaya Baaqi, wuxuu dhahayaa arrin muhiim ayaan halkan kaga hadlayna, adini kaftan iyo fowda iyo inaad Saay daba taagnaatid ayaad weli sii jeceshahay miyaa. Ugu dambeyn Baaqi way farxaysaa, niyaddii ka hadlaysa, waxaana leedahay Firaad inuu baxo waaba iska rabaayo oo Saay isaga way kala fogaanayaan, inay hal qol isla degaan ayaanba kasoo horjeeday. Marba haddii howshan uu ku mashquulayo damba iigu jirtay leedahay. Ugu dambeyn Saay aad bay uga xumaanaysaa bixitaanka Firaad. Firaad wuu soo dejiyey, ilintan uu ka tirtiray, waxaana dhahay waan soo laabanaya, waxba ha ka walwalin, isdeji. Dhinaca kaleetana Firaad isagoo qoyskii macsalaameynaya ayay Saay keenaysaa saxankii ducada, iyadoo doonaysa inay Bafani u dhiibto, misena dhehayso bal waa kana Saay Firaad waa kanay ducadii u sameey, gacantana waxii loogu xiray ugu xir. Waa caadi dhaqan ay aaminsan yihiin iyaga marka qofka safarkaas uu galayo in ducadaas loo sameeyo si balaayo aysan ugu dhicin. Ashwani waxay xasuusisay haddii labadooda kala fogaadaan in labadooda midkood uu dhib dhacayo ama xiriirkooda uu burbur ku sigan karo, lasoo dhexgali karo. Arrimahaas ayay soo xasuusinaysaa in dhakhtaradii ay tiri waxaasoo dhan Firaad dhagjalo qomasinaya, waxaana dhahay wax dhiba ma dhacay, waan soo dhaqsanaya. Laakiin Bafani way diiday inay howshas qabato, Saay u dartay. Waxaana leedahay markan aniga howshan ma qabanayo. Dabcan Saay ayaa howshan loo diri rabaa, xaas noqona waa la dhihi rabaa oo Firaad ayuu manaska ka sameey markuu baxay. Haddaba xalqadii meeshii ku dhamaatay daawadayaal, Firaad oo sii bixi raba, Saay oo ka xun bixitaankiisii, Baaqi oo ka faraxsan, qoyskii oo Firaad uu macsalaameeyey, ninaad laakiin lama tusay oo maqan yahay. Taleefanka iyo qoyska uga soo hambaliyey in markaasi xafladda Diwaaliga, munaasabadda Diwaaliga uga soo hambaliyey. Hadeer waxaan sharaxnay 4 xalqadood oo musalsalka qof oo lansaday canshaqa, waxaana dhiman xalqado badan oo si aan qaybta afindiga ku gaarno waana soo dhamaystirayna xalqadaasi maalmaha soo socdo. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayna, wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.